السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال مركز السياسة الصومالية maxaa update ah soo dhawaada dhamaantiin odagu waa live hadda inta ugu badan waqtigeena maalmaha soo aada live aan ku kala warqaado doonaa saaxiibada la sugayaa waxa maqlayaa magacaabista mahad salaad sambulusha iscasilaaya gada marxalad baa ka socota gabi ahaanba Jubbaland maxaa ka soconaya waayo waqti fiican inaan soo galano waan rajaynayaa انت هذه داونة سدربة صاحب بدأ قالي جاء برنامجك وكاجي إذا كان محيط ما يشان عدالة يدحضحات سياسة قنجارة أو عركت فرله أو معارض محافظ لبده من الميزامة أهور تلاقي سوداء أنت ما سياسة مال جرت أو حق جرأة أما مال معارض حق جرأة محافظ حق جرأة بدنا معه مركلة وسعيبك بوسكا برنامجك شرقرية anigu waa dabcan halka wariyaha qabtiin waay oo hadana xamar ka soo waran waaya update ka saacadoodii wada aan kala war qaadno saaxiibada inta maqanna u sii share garay inta joogta dabcan ayaga shaqadaas iskale soo dhawaada mar kale waaya barnaamijkeena waxa ku furan doonaa 500 qofood hadana 100 qof ku dhawaada ayaa dhiman sababta saas ku leena waxa waaye qofkii cusbaan wuxuu rabaa in hadana update la siiyo marka raali ahaada 2 daqiiqo oo barnaamijka ashar gareysaan ama aad love iyo like saartaan si dadka kale ay u arkaanna adinka taas kaalintiina waa saaxiibada qaali ugu ah wiilal iyo gabdho aabba iyo hooyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid hawiye daaro digli mirifle bounty 5 kulli waa maqaayidan شين عليا كبرت مقاعدان مقاعدين وكله مقاعدي سواء هرجيس أو مقدشة أو مريكان وشرمل مقاعدس مقاعد قوة رواي شين هبين كلا أيا كال دونا هو شيء حد سبحان الله إن أنا أبدي إن لو ذاقو وحنفلها يا إن هتصفي على رتي مغلسان وحنفلها يا كم تيجي بين كهريا مسه يسوع غراء وايه برامج قبل لا نكرنا soo dhawaada mar kale waxaan ku bilaabaynaa update ku saabsan barnaamijka hadda bilawnay qofkii hadda imaado war kuma dhaafin waxaa jira maalmahan guux ku saabsan magacaabista taliyii hore ee NISA mahad salaad guuxaas uu soo xoogeysanayay aniga fikradku ma darsan aniga Cabdulqaadir fikradku ma darsan dad aqyaara oo siyaasad xiiseeya ama hobbigoodu uu yahana war beena ama fiyuus lagu raadinayo lama hor iman karo waa ku ceeyoobi kartaa oo boonoobi karaa warka marka markuu soo xoogeysto uu guux magaalada soo galo oo narrative uu soo bato ama been uu noqdaa ama run uu noqdaa caawa marka taasaan rabaa inaan wax ka dhaho intaan ka ogahay boqolkiiba boqol aniga madaxweynaha Soomaaliya mihi golihii wasiirada wax magacaabayna mihi waxna u ogahan oo dhici karaan ya oo wax iguma soo dago waxna imaba seegaan warkana waa qaboobi karaa oo laga laaban karaa marka mahad salaad magacaabistiisa ayaan rabaa inaan wax ka dhaho waxa kale jira in taliyaha NISA sanbalulshe ninka la yiraahdo sanbalulshe gaarka xawaadle asagana ama uu xilka ka dagayo berito berito yadin ama uu iscasilayo ka hor inta aanan la magacaabin mahad salaad ama golaha wasiirada ay riirayaan ama xil kale isaga lagu sharfi doono marka qodobkaas aan ku fariisinayna qodobkeena labaadna Jubbaland uu noqon doonaa gado marxalad adag ka taagan dowladda federaalka waxay isku filisay gado marayxaanka waxa is leedahaba xarash mi u hayeen macnaha Axmed Madoobe macnaha gado marxalad adag ka taagan marka shirkii golaha watashiga NCC kii ugu dambeeyay go'aamo masiiriya laga gaaray gado macnaha waa faanteen Soomaa oo ilaa Axmed Madoobe ninka la yiraahdo dani uu ka hadlayay oo caalamka dhan ay ka hadleen dowladda federaalka marka see wax u rabtaa Jubbaland qaabkee dowladda federaalka u wajahaysaa sida ugu waaqiceysan ama ugu dhow xaqiiqda ayaan taasna cawada ugu dhici doonaa
وافرتي سوما هدي وقت ونوسا معنا أبديت كلا يوحي جرا برلمان كشيء باقي سواء باقي وحال فيله وعاصر من أبديت بسيدنا مركز السود وهذا أرتمها صلاة نسا أيو صوما من صار كورة إنسان إن بدن أو هول أو لغو أماني أو شعب بدن يكون أمانين ويجتها إلا مدحوينا ما أنتو حلك كدقاي أماني وحنا أنا مرقاتك أهي ما صلاة أمني مقدشو يكن صوماليا إنه كالم وين كقاطع تبرجي وجوجي مقدشي أمني جينا ما أنتو واحد لقونا على هايو كاميرا الحري إذا در عدو اللبديجي السوق بكارها أو جيدين أو على أمريكا عبد القادر بوسع ما تسكوريجا السوق بعاد أسكتجا عبد الله الشداء أسكوريجا أسكر الموتو مالك استكاميرا كوهرم رفعت كاميروين كلا صومري درعت كإلا بر لقى صومري شق جلنتاس هوش ما دوك أمانية ما هذا ممكن سؤال شبرك وعيتها ما هذا مصاص هذا صلى الله عليه وسلم هرت السيدة عليك حكتك حيو وأنا أفرفنا يا قصب معها إني ولا أساس قسم معها إني سندعين لكن السيدة حكتك هاي وأنا ربنا أمد الصلاة اللي ما هاد ما عليك استوحى كفتر ولا هدين اثنين خميس اثنين خميس اثنين خميس هرت هوش عبد القادر بوسا كوسو دالة أنا صاحب كي نقول لك أسد ديان اللي را خميس والبودي جري خميس أنا خميس اللي بحيب قميص مركز دم أنا أسكت أم سوار قميص تلوي بعد هرتو وركي لهذا الهيو أو سوق الجلجلو بدنا بقول كي بس عشان ورك سوار دبوبا وفات الصباح مركز سنين عيب ما قف كدو مرهب ليه أو الرجال ليه هرت عيب ما سمبلوا الشغل ليسا ماشي كم سعر عيو إيجار كاس حوالي فريد كأه سامين تيس مقدشو إلا حتى تقالنا حوالي أبقال سامين وكلها إننا عدي سجعليهين إن كستو هراب ويل هراب إسكرهان والله إن الشقاق بدن قبتي النساء سجنوية مركب وحار ربينا إذا عدى عاوة برنامج كشار جري ورغرا وكون قفا دنتي هنا برنامج كشار جري وكون كلا لما كون كلا جارسية إن كستو دب إكدا من دوران صاحب هذا وعاكم بشارة ستان سنينتا وين عكرتاني ما عليك اللغة وركان ملك وقرط ما دول غدي السنة سواهي سيا سنين وهذا عكرت خميس وحقيقنا هرت بقول كي بقول ما هاد صلاة إنه ورقدي السنة سقط وكو حقيقنا لكن سؤال شتايرة وحيتها سنين ميا مقاميسها ما سنين تدنبا مبردها ما أربعة الدنبا ما الجمعة مساجك اللي وقت واقعية ما جرنك سنين وقياستي اللي هادو قاربا أنت داونا وحدي دونا وريا سنين بانوش شيكتي عاوي نينكي سنين من جوجي دولتنا دي waxa aad si ognahay ama aan ka sheekayna ma sameynaysa maalin kale dib u dhigi kartaa waa laga soo hormari karaa asbuuca dib loo dhigi karaa taas waa fahmi kartay soo ma sheekh mahad alaabtiisa waa heesaya isniin rukub inuu dhahaa laga yaabaa xafiiska dhis rukub inuu dhaho waaya mahad salaad soo laabashadiisa marka ninka la yiraahdo sambaloshi asilaadiisa inuu asili doono maadaama hadii xilka laga qaado nin xilki adiga kala wareegtay inuu kala wareego waa ceeb nuqto waa mid farmaajo ku dhacday xasan buu xilka qaad xasana ku soo laabto waxyaabaha qaar siyaasadda geeri laga xigaa mahad marka hadii nin sadarada waa ka hadlay inta barnaamijyadeeda la socotay mahad haduu nin qabto hadda waa shakhsi caadi ah haduu nin qabto hankiisa gal mudug ma dhamaana su'aal weyn waa muqt hada fahmi kartaan إلا إنك الناس اللي وديبه أول نوع هو بعينه قلمته مدحوينك النقطة دور الشدي سجديد النقطة قرقر يحسن وصل اللي فيا واسكو هستان ما الله مصعده إنه شغل أنا تقول على صلاة الله تو هنكسو قال أما أسيق الله حيسي سو ما دي عكرته ها هنكيس بدنا ما نعمل سؤال واي هنكيس بدنا ما نعمل مثلا أبغى أسوي أنت كأذك وكحب بدن وإلا إنه هيدنا هستو هدو دور الشدي قلمته قالوا إذا أنا لو ما أتكاكر قرش أنا لو ما أتكاكر ريكورد كيس شقدنا دبعا بقول كيلو بقول الشقف عم بقول تلكان مركا أوداجي سنين تورقد واحد ستا ورقة زمان بقول قرتين أنت تاجر سلا لا كسرت ورقد إنه هست يا أنت تاجر إنه ورقد هست وريا لايك سارة أوكي
maxaa dhici kara mahad salaad haddii xilkan uu ku soo laabto sanbaloolshe iyo xawaadle maxaa ku dhici kara marka waxaa arkay su-aal raba beesha xawaadlinaa weydiiyey iga gaarsiiyey waxaa arkay horta xawaadle intaan u guda gelin sanbaloolshe aniga see ila taha waaya hadday dhacdana qabiil siyaasadda dee dabcan iyo aqoonsada hadday dhab tahay in mahad warqadiisa qaatay ama isniin ha la magacaabo ama isniinta dambe ha la magacaabo ama khamiis ama arbaca ha la magacaabee uu ilan hadduu cabdiqaadir boos og yahay sanbaloolshena kuma war le-e sanbaloolshe waxaa laga yaabaa inuu iscasilo micnaha resign haddiiba ay dhacdo in warqadiisa mahad u haysto sanbaloolshe waxaa suurtagal ah inuu iscasilo waa suurtagal waxaa suurtagal ah inuusan iscasilin oo shirka golaha wasiirada mahadna warqadiisa lagu siiyo kana xilka loo magacaabo waa suurtagal laba option bas ay dowladda haysataa in sanbaloolshe xil kale la siiyo oo golaha wasiirada xil kale ku qanciyaan ama inuu sanbaloolshe laftarkiisa iscasilaba labada waa suurtagal waaya xawaadlaa isoo haray intaan jubbaland iyo dowladda iyo qorshaheeda iyo waxay halkaasi ka wado aan u guda gelin waxaan rabaa inaan idin weydiiyo xawaadle nimanka la yidhaha beesha xawaadle waxaa arkay xawaadlo badan oo taagan had sanbaloolshe maa xilka laga qaadaa mahad kawaadle habar gidiraa xilka loo celinaa oraale habar gidir mayaa gaala horta cadaaladdan ilaha lagu jecla xawaadle haddii la siiyo sanbaloolshe xilka laga qaado oo mahad salaad loo dhiibo xawaadle aagay ka baxayaan dagaalkay ka baxayaan su-aalaadi weydiinaa ummadda soomaaliyeedna markhaati ay tahay war sanbaloolshe markii xawaadle dagaal galaya mahad salaadaa jooga haddaan qaldaneen mahad salaad waa jooga sanbaloolshe asoo shacabka qudbeynaya oo rajo leh xil raadinaya casashe ka raadinaya shalay markii xawaadlo dagaalka aa galayseen oo shabaab ad la dagaalayseen ma sanbaloolshaa taliya idin ahaa su-aasha xawaadle iyo ummadda soomaaliyed weydiina haddii sanbaloolshe xilka laga qaaday xilkan waa meerta qaranka loo haayaaye ugaas xawaadle xil lagama qaadin mogtahay oo xilka laga qaado waayahay xawaadle dagaalka may ka soo baxayaan isaa gabdhahooda iyo ciyaalkooda la dilaa la kufsanaa micnaha maxaa lagu dooda hadhow sanbaloolshaa xilka laga qaaday haye haddii laga qaaday xawaadle ma waxay ku bedelanayaan sanbaloolshe in xil laga qaado ma waxay ku bedelanayaan in shabaab dhulka xawaadle ay ku dhinteen intaasoo boqol oo wiil inay ku bedeshaan shabaab in la siiyo minaha xawaadle waxaa ka dhigteenba kuwa xawaadlaha oo qeylmaya aniga aagga ka soo baxaynaa ayaa kaaga futuxun haddaa ka soo baxay aagga aad shabaab kula jirto waa ku ammaanan tahay beesha xawaadle way ku ammaanan tahay laakiin sanbaloolshaa xil laga qaada mahad salaada loo dhiiba aagga waa ka soo baxa yaa kaaga futuxun in dhulkaaga khawaariij qabsato gabdhahaada la kufsado wiilashaada la dilo odayaashaada la jarjaro micnaha qof xil haaya dartiis maa dhul xawaadle loo faaruji karaa war miyaas caqli jirin adig xawaadle matalaadoo leeyahay dowladda agaasimuu leeyahay xildhibaanuu leeyahay aqalka sare aqalka hoosoo leeyahay wasiiruu leeyahay haye maxaa isku xiray xil uu sanbaloolshe ummadda soomaaliyed u hayo iyo dagaal xawaadle uu kula jiro khawaariij wax iska qusay ma sheegi kartid yaa ii sheegi kara he arrintaas waa arrin baadil ah waay kelmad baadila oo ama xawaadle lagu qufulay ama ummadda soomaaliya ay aaminsan tahay ama kelmad siyaasadeedsan waay xawaadle sanbaloolshe keliya maaha xawaadle billions waay dad aqoonyahanoo leeyahay wasiiroo leeyahay xildhibaanoo leeyahay agaasimayaanoo leeyahay kuwo kalaa imaan karo xataa sanbaloolshe mid kale lagu bedeli karaa xawaadla marka iskuma xirno halganka hiiraan ka socdo iyo sanbaloolshe xil laga qaado wax isku xiran ma aha xawaadle ogaada wax oo dowladda dhexe ay aaminsan tahay fikrad noocaasana ma jirto soomaali iyo dowladda dhexe ay aaminsan tahay halganka xawaadle uu ku jiro xawaadle keliyana kuma jiro ummadda soomaalida ku jirtee ciidan qaranaa jooga haramcadaa joogta boolisaa jooga militariyaa jooga waranaa jooga hebeloobaa jooga xawaadlaa jooga macawislyaa joogta halgan ummadda soomaalida ay ku jirto oo hiiraan waay xawaadle deegaankiisa ha noqdo ha hogaamiyo iskuma xirna iyo xil qof raadinayo oo laga qaado iskuma xirna intaas waxaan rabaa inaan uga baxo waxaase laga yaabaa hataa in sanbaloolshe iska sii joogo saacada waa iska suurtagal logic wax logiga waa laakiin boqolkiiba 85 qiyaasteeda siyaasadda
ninkii maad salaad ahaa warqadiisa waa qaatay awada ka horna idiima sheegin eragaas intaas ugu baxaya waxaan rabaa arrinta Jubbaland waa xasaasi inaan ummadda Soomaaliyeed caawa fariintaan meel kasta la gaarsiiyo arrinta Jubbaland horta iyo Xasan iyo xukuumaddiisa iyo Axmed Madoobe meel xun bay kala marayaan intiina badan ma ogidin Axmed waa tuu yiri ani dawladda dhexna ma aqoonsani Jubbaland way isku filan tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha meeg waa qabsadeen Axmed waa ku tufeen asaga waa ku tufiyay ciidan waa la waday raas Kambooniya la tagay waa la isxasuuqay waa la isdilay intaas wixii ka dambeeyay maxaa la filaa wanaag ma yaala meena mar haddii xabad imaado wixii ka dambeeyay oo wada hadal uusan jirin Axmedna uusan diyaar u ahayn asna la aqoonsaneen horta wanaag ma jiro laakiin hadda intee marka dawladda dhexe intee wax marsiinay marka number 1 horta hal su'aal oo kaftan ay weydiinayaa Axmed Madoobe uu is doorto inuu laga hadlo uu is doorto ha is doorto horta calay masarkiisa aaw asaga madaxweynaha ma ha is doorto ama is dooranay waagi farmaajo uu is doorto calay masarka wala tagi jiray Xasan Sheekh Shariif Deni Jinni Balaayo kulli wala tagi iyadoo farmaajo lagu xumeynay ninkan calay masarkiisa maxaa uu qabsan la yahay ama loo tagi la yahay horta su'aashaas waxaan rabaa in adinka idin weydiiyo meena أو على مسارك أو يا تجاي السجى ما سمعت السجى ما إنه واحد بعد اليهين وهو سمي منها على مسار متجرميع بس سؤال أذكر يسوع حبي وضي أحمد أتاكو دير الماء مركز تاس واي أنت واحد مرايا على المركز هرت الدولة ده يعني بدي أقرأ قضب كان برنامج كي يقول دمبيو لجان قاعدة قضب كان لجان قاعدة دولة ده saddex qodob hortaala oo Axmed Madoobe ku saabsan qodob meesha waa ka saaraya marxaladiisa waa adag tahay wararka suuq waay marka waxa hubin waay aniga tan waa macnaha inta xog ogaal u ah waay boqolkiiba boqol waa huba idin dhimaay aniga Axmed Madoobe miya Xasan Sheekh miya dawladda federaalku waxay go'aan ku gaartay in wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay soo warbixin ka keento xaaladda Jubbaland markaas Jubbaland la fiilin macna wala fiish hal ila lagu fiish waaya ma dhacay marka hadda sida cawada aan xogta ku helay gedo inteedii ugu badneed marka dolow laga reebo ciidamo ka amar qaatay dawladda federaalka gacanta ku qabtay dowladda Ethiopia maamulada ogtii waxaa la xiray asbuuci la soo dhaafayay odayaal dhaqameed afkaarta Axmed Madoobe ku hadlayay inkastoo marka dambe wada hadal lagu sii daayay dawladda waxay dhaqaalay iyo ciidankii ugu badnaa ku bixisay in gedo gacanta lagu qabto ujeedada maxay dadka deegaanka mareexaanka halkaas degan ma Xasan Sheekh rabaan bas Axmed Madoobe rabaan horta Axmed mid uu ku ciyaaray Axmed ma abaal gashan mareexaanka gedo degan ma abaal gashan waqtiga farmaajada ma abaal gashan waqtiga hadda Kismaayo uga bilaabata ciyaarta Kismaayo uga dhamaata dawladda marka saddex qodob hortaal mid meesha waa ka saarayaaho in Axmed la tirtiro oo la cirib tiro hadii la rabo horta waxay ahayd in jubbada bu'aale ila dhulkaan alla qabto horta saako iyo jilib iyo hadii la qaban lahaa Axmed uu isdhiibi lahaa awoodaas hadii ma muuqato dawladda dhexe ma laha runaan ka hadlayna mogtahay Axmed hadda in la hareereeyo oo dhulkaan jubbada dhexe iyo jubbada hoose Kismaayo kaliya jooga asaga muuqato awood ku leeyahay in inta dagaal inta laga bilaabo qawaariid inta laga xoreeyo asaga la hareereeyo dawladda awoodaas ma ila laha marka fiirshay qaabka ay u socdaan marka fiirshay xaaladda raas Kambooni marka xaalado badan qiimeeyay awoodaas ma laha laakiin dawladda laba awoodood midna sharciyad waaye midna باور كلا واحد ورما حتى أبو فتح لسه درويابه باش أو حمال اسكو دراود طب شيء كعصور دولة دمد مرك maamul ka Jubbaland oo kala ah in gada looga dhawaaqo oo doorasho la qabto war maxay taa buufinta waayaab war baalka ma wuxuu noqday sida TikTok wax la isku diray iga daaya dii kala habeen kasta soo galaa wallahi waay maamul
lamid ah kan Axmed Madoobe oo Jubbaland liiraa oo dawladda dhexe aqoonsan tahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqeysay ayadaba ha ximbaarato ama ha tahriibiso in gada laga sameeyo oo sharciyad la siiyo oo caalamka laga gado oo shirka madasha uu ka soo qayb galo inay dawladdu tilaabadaas ku dhaqaaqdo boqolkiiba 90 waay waana sababta gado dhaqdhaqaaq ciidan oo hadda uga socdo waay mareexaankina xukuumadda xamsee wataan iyo xasan sheekh karunta idin sheegay inkastoo mareexaan yar waa xasan Axmed Madoobe iska taageersan oo Kismaayo laga soo diray jiri karaan haddana mareexaanku dee maamulka Kismaayo joogo oo aan weligiis u shaqeynin dawladda ay ka jecelin ayaga mareexaanka waa dad wadaniyiin ah marka loo fiirsho mareexaanka waa qabiilka kaliya ee dawladda ay qofka horaba madaxweynaha ka noqdo sidoodaba mareexaanka dawladda ay aaminsan yihiin sidoodaba waa dhulbaantaha kale waa qabiil kasta dabeecadu leeyahay moogta dawladda ay aaminsan yihiin ama Cabdiqaadir Boos madaxweynaha ka noqdo ama Vladimir Putin ha ka noqdo ama Farmaajo ha ka noqdo macnaha waay haddii gado dawladda gacanta ku hayso ee dawladda nidaam ay Axmed Madoobe kula diriraysa ka samaysato oo gobolka gado si hadda gobolkiisa oo jooga xataa Kismaayo kaliya ka sita Axmed Madoobe daaqad ka baxa ileen ciidan uma soo diri karo sida raas Kambooni iyo dadkii deegaanka ma rabaan powerful no way ka yihiin dawladda dhex gado Axmed meesha waa looga taqluus karaa waana hadda tan lagu jiro shaqada hadda socoto waa saas ma jirtaa hal kale oo Axmed Madoobe lagula falgeli karo oo siyaasadeysan oo siyaasad xasiloon ah ma la heli karaa way dhici kartaa laakiin boqolkiiba 5 ilaa 10% waa oo maxay tahay waxaa suurtagal ah ileen dawladda muutaayad waa safe waay laba af leh dhinac kasta loo rogi karaa waxaa laga yaabaa xukuumadda iyo madaxweynaha ama dawladda Soomaaliya ama dawladda dhexe in wasaaradda arrimaha gudaha ay faraan in Axmed sanad loo jadiidiyo kadibna miiskooda halka soo fariisto kadibna doorasho laga qabto Jubbaland hal sano oo jadiidis ah ileen hadda qoorqoor iyo Cali Isbaara waa joogaan Soomaaliya waa loogu darooyaa Axmedna in loogu daro oo doorashadii maamul goboleedyada iyo Axmed hal mar la isku aadiyo way dhici kartaa laakiin inta siyaasadda ka aqaano hadday taas dhacdo oo doorasho qof iyo cod haddii la aado waa gaar kama hadlayo taas mar kale falqeyn doonaa laakiin haddii deegaan doorasho iyo teendho loo laabto waa dhici kartaa teendho in la aado qof iyo cod in la aado way dhici kartaa taasna ma ogin deegaan doorasho kasto eelwaaq iyo hebelow iyo Axmed yeeli maayo anaa hadda si uu banaan idii sheegaya wixiisa dhanka Kismaayo ku soo dhamaysanaa dawladda dhexna waa ogtahay marka taas haddii dhacaysaba haddiiba teendho la aadayo Axmed loo baahan maayo waa tuurayaan dawladda dhexe laakiin waxaa lagula heshii karaa Axmed oo gogosha kusoo fariisan karaa haddii dawladda qorshaheeda istaraatiijiyadeeda ay tahay doorasho deegaan qof iyo cod ah Axmed daaqada laga saari karaa laakiin haddii teendho imaado wuxuu taagan yahay hadhow final wuxuu sheegi doonaa ognaa mugta deegaan doorasho qof iyo cod iyo ceel waaqa hadhow waa laga soo boobi karaa hadhow soo mugta maya Kismaayo xiisna marka anyway marxaladda gado waa adag tahay waa marxalad adag waa hadda gada dhaqdhaqaaq booliis waa ka jira ciidanka dawladda isku ballaariyay meel kasto dowlona day ciidamada Ethiopia fadhiya ma reecaan kara gumeystaha ma jecla reecaanka wax gumeysta liina ma jecla marka intaas waa update ka caawa inta idaawanaysa aad u maasantihiin haddaan qodob idin raacsho maanta kulankii baarlamaanka waa baaqday xalay ilaa iyo 100 xildhibaan ka badan oo diidan xisbigan madaxweynaha hore boodaayo ayaa maanta in waxaa laga baqay mooshin ay keenaan macnaha Soomaaliya siyaasaddeeda aad u cakrantaa ogaado marka siyaasadda maadaama cakrantaa shirki kulankii dhan waa la baajiyay macnaha ila fawdo iyo qalalaase iyo rabsho ayaa laga baqayaa marka kulankaas uu ku baaqday laakiin aan mid ogahay xildhibaanadan hadda buuq iska wado iska dhabanaya ama laaluusha ku dhamaadaan ama ayaga iska daalaan u malayn maayo inay Xamse ama Xasan inta mooshin ka keenaan tabaray wax ugu qaadaan malay badi ilaan ayaga dhanaan golaha wasiirada ka buuxaba
كل جود بابا وزير كحجين أجيك دم بابا الدولة دي لفلك المركة أنت أسوأ أبديت كعاوة صاحب بدأ يداورنا هنا والسلامة يا كوا دب يداور دونا نروح على هاي برنامج كشير قرية وانا السلامة عليك أنا قوليستا باي باي